kulan ay soo agaasimeen bahda isboortiska laguna soo dhaweynayay Legend Shiiqa oo ah gudoomiyaha Somali Legend. kulankani oo ka dhacay North London waxaa soo agaasimay macallin Sakariya Axmed Bile macallin Faaqid. kulankani waxaa ka soo qayb galay ciyaartooyda barsalaamaadkii Masar Digeya, Munuudi Abati, Maxamed Axmed Daysane, Maxamed Cali Digeya, Injineer Jimcaali Abdulla Maxamed. salaanka bacd ilaahay nuskeenkeen mahad leh fadhigan aan wada fadhino waa dhowr barnaamijka waxa noogu weyn waxa uu yahay gudoomiyaha Somali Legends Cabdulla Shiiqa oo martin noo caawa noogu yimid magaalada London qaasatan North London. gudoomiye ku soo dhawow xaafadeena iyo waxaan kale oo rabnaa inaan halkan ka faa'iideysano fursadan labada legend ee xaafada noogu weyn ee safar aaday noo soo noqday aan la sheekaysanay waxay soo arkeen waxay soo qabteen taas noogu muhiimsan. haddaan ku soo noqdo gudoomiyaheena gudoomiye Cabdiqaadir Somali Legends dadka caawa la fadhino iyo in naga maqan waa asaasiyaalkii waa hormuudkii Somali Legends ee wax qabadka loo qabtay 2005 xaafadan waxay bilowday inay u gurmato ciyaartooy kasto oo dhibaataysan ku dhibaataysan dalka ayagoo jeebkooda ka wado qofna kaalmeynaynin ayaga iska go'aansaday maanta waxaan rabaa inaan u qabano khayr Allah siiyo intaan iyo in naga maqan ayaan rabaa inaan ugu mahadnaqo runtii wax qabadka qofka bini'aadamka inuu sheego waay. North London waxay hal ka midaysan tahay oo ilaa aan qiraayo bilaha hadda ugu dambeeyay xataa aan ka soo qaato aan meeshin gareeyo Allah u naxariisto macalinkeena weynaay macallin Cabdi Butiiste ayaga u istaagay inay wax qabtaan oo xoogooda oo ka mid yihiin North London iyo ciyaartooyda u soo ciyaartay naadiga Sancada oo muftin ugu horeeyo walaalkeen Cabdiqaadir Isnaay asagoo dhaawac soo gaaray asii wiilkiisii inay u gurmadeen. taasna waxaa daliil u ah North London inta degan waxay markasta hormood u yihiin inay ka qayb qaataan walaalahooda dhibaataysan ee dalka ku dhibaataysan. waan ugu mahadnaqayaa waa meesha kaliya aan ku arkay ee aan u baahnayn. waxaan xasuustaa inta fadhida inta naga maqan inay tiraahdo haddaa sadaqa iga qarisid adduunyo aakhiran ku haystaa waa wax la oo bini'aadanka dheeriyaha waay. waxaan codsanaynaa mar labaad codsanaa haddii North London ku hadlay magaca North London inta fadhido iyo inta naga maqan caawa ka soo qayb gal aan ku cudur daaranayo ayaga aan u sheegnay ee soo imaaway dana gaar haystay waxay diyaar u yihiin inay markaba sidii hore uga qayb qaadan jireen inay uga qayb qaataan Somali Legends ee dhibaataysan ee dalka ku dhibaataysan. aanoo ku hadlayo magaca Somali Legend waan ugu mahadnaqayaa walaalaheen khayr Allah naga siiyo inta bixiseen يوم الآخر أيها جيب كنيسة إله سبحانه وتعالى وحوليه قرآن كسكول ليه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وحكى هريه وحبين بنجي أوتك توالو باشالا عنوجا هكو باشام أما سلانتا هكو باشاش وحكى هريه وأنت بحثت تاسو هدردارن كيجي يوم ما هدناقة وما هدناقة يعني بركة فرصة أمهلين إن ولا عليهن أن أشجع إن الله جزاك الله خير أنا نجسيو أنت بحثتين إنك بدن الله نيجو بدله هذا ما سمعنا صاحبي ولا عليه عاوة حفظه ولا جم مدينه لكن واحد اللي يقول دي بقدومي وعلي هذا ربط عاوة ماشي قرنه ترتيب سو بدأ ما يفضيه خبير كسبورتيكا ونو قام يجري إنه نو ده عاوة بنكينه قال لكن وكسر صار هذه اللي هذا نوع حكوا دينا يا محمد عيسى ورحمة الله وبركاته. تفضل. عاوة شرف وين بينوتاي إن أنا كان كسر قبل كله بعد سبورتيكا نورث لندن مثل aan ku soo dhaweynayno labada legend daysane iyagana waxaa leenahay markii laga sheekeynaya hadda gudoomiyaha Somali Legend
london sheekha keligeeda ayaa mar taagnaa oo lacagta aruujir walaalkeena faaqid aruurin waxyaalaha ay qabteen wanaagga ay qabteen say wax u wadaan annagana waa ku faraxsanahay sadaqa keliya maana inta waxay noo tahay walaalaheenna inaan gees oga soo baxnaa aan caawinaa mar walba waxaan ilownaa sheekha guddoomiyahan waxaan dhahnaa wuxuu yahay maxaa la yidhaahaa Somali Legend marka waxa organization ku sii qabanayna waa garan kariyaa markaan saa ka hadlay ciyaartooydeedu waa garan karaan dadka soo arkay ama dhibaatada ay ku jiraan ama wax ay fil garaynayaan waa arki kariyaa marka waxaan leenahay intiina wax baxsatay ama wax baxsan doonto khayr Allah idin wada saaco kala meesha fadhiyo ciyaartooydii hore naadiga madbacada Muridi Abu Nuur Abati Maxamed Deysani gudoomiyahana Caliyow Haji Eric Janyo football and basketball ninka kaliya waa dadka farkotiriska ee kubadda kolayga iyo kubadda cagta ciyaaray asaga iyo Shaash Jimcaale iyo Xuseen Abati Malayna khudbad ku wareejinaya Haji adiga waa maahan lawa muri qof kale bismillahir rahmanir rahim marka hore waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Legend ordadkii u xilsa u doortay waa asiibeen inay macnaha sheekha ka dhigaan gudoomiye sababtoo ah qofka sida u dhaqaaqo activitiesa inta kaliya hadda London oo noogu yimid waxaan u maleynayaa inta 10 mar ka badan taa u maleynayaa annagana hal mar hadda America ka reedo ma tagin marka qofka wax uu qaban karo iyo sida uu firfircoon yahay wax loogu dhiibo fiican taa marka waa soo dhaweynaynaa waa asiibtaan leenahay London ku soo dhawow waa mar labaad mar saddexaad mar afraad sheekha aniga waa gaar ahaan si gaar ah saaxiib u nahay oo mataqaanaa oo wax badan aan casho maahane meelo badan isku aragnay runtii marka waxaan leenahay London waa meel laga jecel yahay markaas inaad timaado waa ugu soo dhaweynaynaa waxaan kaloo meesha hadda aan Muridi iyo Deysan waxaan leeyahay hadda meesha tagteen anagana madasheen waa maasantihiin meesha sida uga soo qayb gasheen ilaa meel ciyaar lagu qaban hadda annaga ka maqnaan hadda idinka tagtiin annaga waxaan leenahay waa meeshii booskeena buuxiseen jazakallahu khayr annagana insha Allah waa tagi doonaa Canada nimanka cashada noo soo qaban qaabiyay Zakariya Faaqid Axmed Bile waa maasantihiin insha Allah hadda wixii ka dambeeyana waa saaki doonaa insha Allah aad maasantaa Haji waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadnaqo intii xafladda soo ajiibtay ee waqtigooda qaaliga soo lumisay walaalayaal khayr Allah naga siiyo jazakallahu khayr waa iska soo qatimeynaa duqadbooyinka maadaama dad ay beris wax shaqeynayaan shaqo galayaan waxaan siinayaa Maxamed Axmed Deysani waxa ku xiga Muridi waxa noo soo gabagabeynayo gudoomiyahan hadii Ilaahay yiraahdo bismillahir rahmanir rahim horta waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto sheekha oo ah gudoomiyaha ururka Legendska taasoo aan dhihi karo sheekha inuu wax fiican qabtay waxa uu qabtana waxa ugu weyn waxay tahay sheekha nin weyn oo magac loo ahay taasaa waxaa keentay in ururka la aamino ururkana uu sii xoogeysto iyo asigoo dadaal weyn uu ku daray oo sheekha waxaan la soconnaa nin kaloo sheeqaalow leeyahay jiri waxaa la weydiiyey sheeqaalow miyaa sheeqay waa la markaas waxaan dhahay sheeqay shabaqa la dhahay ninka marka sheeqa nin dheedheel maaha waa la soconnaa kaalinta weyn oo isboortiga ku lahay marka waxaan leenahay shaqada awadeed ilaahay khayr ha ka siiyo annagana haddii aan nahay North London sadaqadan taaganahay waa wax fiican haddii lagu weydiinaa iska dhib taasna saan horeba ugu jirnay haddana waa ku jirnaa marka waxaan kaloo rabaa inaan xafladda wax yar uga faa'iideysto safarkii aan baxay oo Canada aan tagay dadka Soomaalida oo Canada degan runtii aad ay noo soo dhaweeyeen si la yaab leh noo soo dhaweeyeen taasna sharaftaasna waxaan ku helnay waa dadka degan North London sharaftooda aan ku helnay sababtoo ah dadkaas markay yimaadeen wanaaga ay soo dhaweyseen saas daraadeed ayaa annagana noola soo dhaweeyay taasaan ku helnay waana abaal aan kaga haynaa dhammaantiin wixii baxay iyo waxaan bixin iyo wixii joogaba marka taas North ahaan waa ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin wanaageedii annaga inii helnay marka waa kaasa ogaada waxaan rabaa marka intaas nooga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة قروح بدن runtii ugu talagaleen Axmed Bile Faaqid iyo Zakariya meeshay ka soo bixiyeen meel ka fiican Ilaahay ugu bedelo Ilaahay subhanahu wa ta'ala alxamdulillah rabbil alamin
waxaan si guud iyo si gaarba reer Canada haddaan ka hadlo dadkaan lasoo kulmay iyo warbixintooda xaqiiqada Somali living legend runtii oo ay qabteen wax weyn oo aan dhihi karo oo maaragtay ticketkii hotelkii haddana aan Ottawa sii aado haddana Mareykanka aan sii aado dadkii inta meesha sababteeda joogaan oo dhan kulleeyo warbixinteeda iyo araarteeda ay ka mid tahay inaan runtii gaarsiin doono hadduu Allah idmo Ilaahay subxaanahu wa tacaala runtii waxaan rajeynayaa ilaa idinkiisa walaalahaygii maaragtay reer Canada gabdhii wiilalba waan salaamayaa ilaahay idinkiisa alxamdulilaahi rabbil caalamiin runtii reer Canada wax la iloobi kara maaha waxqabadkoodii dadaalkoodii ilaahay dhammaan reer Toronto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحان هذا عاوة عن سجون مثل كان عشان شرف عن أقول لقلنا ولكن شيخ وكيمة صوماليا هذا نكوسي جود إله دوير هذا ودن كمراكن كا وحواي شيخ وكوسو دويننا ودن كان وانو كوسو قتلنا سودوا ودن كاجيو كلاتمت ولكن جرو waxaan kaloo cashadan caawa uu noo qaban qaabiyey Zakariya ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay soo dhawaada waana mahadsantiin waxaan soo gaarnay gabagabada xafladda waxaan noo qatamay gudoomiyaha Soomaaliya Sheekha ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد dhammaantiinba walaalaha sportiga ee North London waan salaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan runtii sharaf weyn bay ii tahay caawa inaan la joogo dhalinyarada sportiga ee reer North London oo caawa igu casuumo halkan waxaan ahayd waxaan idinka filayay runtii sharaf baan idin hayaa waan idinka mahadcelinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay ee intii ka soo qayb gashay ee inta aan awood u helin inay yimaadaan لكن نرسل عدي سنيد هنا حقيقة سبورتيغا أيها وحي أنكد حالنا أو كريا وحي أهد مقعون أيها وحي أنكد حالنا أنا قل عكما أن سمينين لكن وحي أهد مقعون أيها أنكد حالنا سببت أسأود أي تايم مانتا قوب كسو أو توقف سبورتيا إن لغسو دويو أو لي هذا ويلكم لو سميو لغسو دويو مركا آدي أدبان رونتي إنك ما دعلنا دمان تيمبا انتاس دبديد Somali Legends Charity oo ururka laga dhawaajiyay ayaan rabaa inaan wax yar idinkaga taabto marka hore reer London sida aniga aan maqaalka ku hayo ama aan la socdayba waxay ahayd dadkii ugu horeeyay runtii oo sadaqadan waxa anaga aan ka hadlayno oo dadkii ugu horeeyay ay bilaabay oo runtii caawin jiray dadka gudaha ku nool runtii waxay ahayd sharaf aad u weyn dadka reer London waliba qaasaan sportiga oo yaashii ugu waaweynaa inay ahaayeen dadkii wax badan runtii qabtay oo caawinay walaalahooda sida hadda uu ka dhawaajiyay ee walaalkay runtii waxay tahay sharaf aad u weyn oo ah mid aan ku dayaneen dhamaanteynba in walaalaha sportiga in la caawiyo Somali Legends Charity marka waxa ay ku abuurmatay waxa ay ahayd markii qof walaalkeena oo sportiga kamid aha waliba walaalkeen Cabey oo sportiga kamid aha in uu gaaray dhibaato yar ay gaartay dhibaatadii gaartay lugtiisa in mataqaanaa dhaawacii gaar awgeed inuu mataqaanaa uu u geeriyooday marka alxamdulillah meeshaas ayaan runtii annaga ka amaqaadnay waxaan ugu kaliftay duruufta markaas inaan sameeyno ururkan Somali Legends Charity waxa aan qabanno marka waxay tahay inaan caawino walaalaheena dadka dhibaataysan diabetic dadka dadka mataqaanaa ay sheeg runtii indhaha laga haya qaarkood dadka runtii gaajo runtii daran ay hayso oo aan runtii bil walba aan wax u dirno marka ma sha Allah reer North London waa ka qayb qaadataan waa la socdaa laakiin message-ka idin diray waxay tahay in aad arinta halka ka kordhisaan oo runtii meesha hadda ay taagan tahay ay kor ka qaadaan la'aantiina anaga wax ma wadi karno meeshaasi qofkii soo arkay ama tagay ayaa runtii ka warbixin kara oo sheegi kara dhibaatada taalo marka runtii ciyaartooyda dadka ugu nugul oo ugu dhib badan waaye maanta oo Soomaaliya joogo marka maadaama anagu dad soo ciyaar aan nahay ama dad soo daawaday ama dad hadda ku dhex jiraba sportigi waajib ayaa naga saaray inaan walaalaheena caawino wax maanta runtii aad u badan ma aha wax aan bixinayno waxay tahay sanadkii waa $120 waa $10 aan u meenaa bish wax ka badan shaah iyo wax la mid ayaan runtii meelaha kaga cabnaa
marka insha Allah arintaas in loo gurmado oo xoog asaartaan ayaan ka rajaynaa dhamaantiinba qof walba niyad uu ku hayo sanadkii $120 maanta waxay tahay mala laakiin baahida jirta oo walaalihiina ayaa runtii aad uga badan runtii aad u weyn marka insha Allah waan idin mahadcelinaa dhamaantiinba sida aad uga qayb qaadanaysiin arinta xoog la saaro walaalaheena meesha anaga Axmed Faaqid iyo di alla ku run yahay sheeg Axmed Bile iyo dadka gudiga inoogu jira hadda ani wan oo diyaar u ahaanay inuu gudigaas ama hawshaas wax ka qabto waa soo dhaweynaa oo diyaar baa u nahay xoogaas waa u baahanaa qof walba oo maanta diyaar u ah inuu hawshaas tabarucaada ee volunteeringa uga qayb qaato waa soo dhaweynaa marka walaalahay wixii su'aal ah qabtaan diyaar baan u hay runtii inaan ka jawaabo insha Allah ta'ala mar labaad mar saddexaad waa idin mahadcelinaa reer London cashada caawa sharafta leh aad ma taqaanaa ii qabateen waan idin kaga mahadcelinaa waana mid aan runtii niyad ku hayo anytime waad mahadsantiin aad iyo aad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh